waxa uu ka hadlay dagaalkii maalintii shalay ka dhacay deegaanka fadhiga ee degmada gar adag ee deegaanka ceelafwe gudoomiye ero waxa uu sheegay in madaxweyne biixi iyo xukuumaddiisa aan maanta looga fadhiyin in ay dirto baaq nabadeed balse laga rabo in ay dowladeed wax kaga qabato colaadda muddada dheer soo jiitamaysay ee deegaanka ceelafwe hadalkayga maanta waa baaq nabadeed oo ku aadan dadka walaalaha ah ee ku dagaalamaya tuulada fadhigaab ee ka tirsan degmada ceelafwe walaalayaal waxaa soo gelaya maalmo yar kadib bishii cibaadada raxmadda iyo dambi dhaafka ee ramadaan waxaan ilaahay uga baryayaa in ilaahay dambi dhaaf iyo naxariis bayna siiyo dhammaan dadka somalilan iyo shucuubta islaamkaba waxaana ku bogaadinayaa dhammaantood soo gelitaanka bisha barakaysa waxaan eeba uga barayaa shacbiga somalilan iyo dhammaan shucuubta islaamka in ilaahay ka nabadgeliyo oo baalmariyo aafada safmareenka covid-19 iyo colaadahaba dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka fadhigaab ee ka tirsan degmada ceelafwe iyadoo ramadaan bilaabmayso wuxuu naxdin ceeb iyo dhegxumo ku ahaa qaranka somalilan gaar ahaanna dadka dega degmada ceelafwe waxaa uu dhaawac iyo lafjab ku ahaa